waxaan doonayaa maanta inaan idinla wadaago mowduuc runtii aad u xasaasi ah, okay? Computerka halka ku arkaysaan waxa la yiraahdaa Mac Mini, okay? Mac Mini M2 chip. Versionno badan oo kala duwan buu leeyahay. Haddaba mowduucan ka hadlaya wuxuu yahay aniga oo haysta computer powerful ah oo aan ka ahayn computer kale oo powerful ah oo shaqooyinka aan u baahanahay oo dhan ii qabanaya. sababta aan u iibsaday computerkan maxay tahay, okay? sababta aan u iibsaday computerkan maxay tahay? magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Baashe waxaan ahay technologist ama software developer ayaan ahay systemyada sameeya mobile applications iyo web applications iyo waxyaabaha la xiriira. Okay, shaqadaydu waxa weeyaan software developer ahaan markaan ka hadlayo in aan dhiso systemyo kala duwan oo noocyo badan ah, mobile applications, web applications, API, waxyaabo noocaas ah, systemyada dadku ay isticmaalaan oo dhan ayaan muxuu ahaayay dhisaa oo noocyadooda kala duwan. Haddaba duulka IT-ga haddaan nahay ama dadka IT-ga ku takhasusay xirfadlayaasha IT-ga iyo technology-ga ku shaqeeya haddaan nahay waxaanu aad u jecelahay waxa loo yaqaan xorriyadda, okay? So saxafiyiinta iyo siyaasiyiintu ma yiraahdaan xorriyatul qowlkaan jecelnahay. IT iyo haddaan nahay dadka technology-ga ku shaqeeya xorriyadda waxaanu jecelnahay systemyada iyo operating systems-ka la xiriira iyo meel gooni ah ugu xidhnaan. Haddaba shirkaddan waa Apple, cid walba way taqaanaa, waa shirkaddan weyn ee maaragtay adduunka gabigiisaba haysata. shirkadda Apple la yiraahdo iyo kelmadda xorriyad la yiraahdo waliba xorriyad teknolojiyadeed sentence kaliya ta lama wada gelin karayo ama jumlad lama wada gelin karayo sababta oo ah suuqa badankiisa waxa ay ku sameeyaan wax monopoly la yiraahdo iyo dadka inay ecosystem ay leeyihiin iyagu ku xidhaan waana sababta aan aniga laftaydu u iibsaday computerkan aniga oo baahida aan u qabaa ayna aad u weynayn ayay laakiin ugu qasabtay inaan iibsado waana tan ka hadli doono sida wax u dhaceen iyo maxaa sababay inaan sidaas sameeyo. haddaba aan soo noqdo sababta igu qasabtay inaan computerkan yaraan idin tusay maaragtay aan u iibsaday waxa weeyaan anigu sidan idin sheegayba apps kan dhisa way. haddaba appsku waa laba nooc, waa dad isticmaala Android oo telefoonada caanka ku ah Samsung iyo Google Pixel iyo shirkadahaas ka labaadna waa iOS oo waa telefoonkan ay iska leedahay shirkaddan la yiraahdo Apple aynu hadda ka hadlayni. haddaba iminka markaad application dhisayso haddii aad dhisayso waxaad u baahan tahay application-kaaga inay cid walba isticmaali karayso. macmiilkaagu waa labadaba, macmiilkaagu laba nooc weeyaan, waa dad iOS haysta iyo dad haysta muxuu ahaayey Android oo shirkadihii kale isticmaalayeen. waayahay haddaba labadaba waxa lagaaga baahan yahay application-ka aad u dhisayso in ay isticmaali karayaan si seamlessly oo isku experience ama isku dareen u dhow inay u isticmaali application-ka Android version-ka haddaad doonayso inaad Play Store dhigto waxa kaliya teed u baahan tahay waxa weeyaan computer nooca doonto adigoo isticmaalaya ayaad publish gareyn kartaa application-kaaga Play Store ka dhigi karaysaa adigoo isticmaalaya computer Mac adigoo isticmaalaya computer Linux operating system ku jiro adigoo isticmaalaya computer Windows operating system ku jiro ayaad application-kaaga publish gareyn kartaa oo deploy gareyn kartaa oo aad dhigi kartaa meesha loo yaqaano Google Play Store si ay dadka oo dhan u access karayaan. waxaynu ka hadlaynaa waa application-ka Android-kii weeyaan qaybtii Android-ka. haddaba su'aasha taaganta waxa weeyaan ma sidaas oo kale ma sidaa fudud ee macquulka ah oo kale ayaad u publish gareyn kartaa application-ka iOS-ka jawaabteeduna waa maya waana waxa igu sababay in computer-ka yar iibsado, okay? waayahay haddaba dhawaan baan application-ka aan dhisayay laba version baa la rabay inay kala noqdaan oo maaragtay ay cid walba access gareyn karayso ay isticmaali karayso qofka iOS haysta iyo qofka Android haysta. way application-kii Android-ka ha si fudud baan u dhameystiray oo bila problems iyo wax walba maaragtay si smooth baan u dhameeyay waxaan dhigay Play Store-ka. haddaba application-kii qaybtii iOS-ka ahayd markii aan bilaabay in aan iyadana sidoo kale publish gareeyo waxa uu igu xidhay in aan haysto wax la yiraahdo Xcode. Xcode maxaa tahay? Xcode waxa weeyaan toolka ama IDE-ga wax lagu dhiso ee ay iska leedahay shirkadda muxuu ahaay loo yaqaano Apple. Xcode waxa kaliya oo uu ku shaqeeyaa computerada ama devices-ka ay iska leedahay shirkadda Apple ee ku shaqeynaya operating system-yadooda kala duwan ee iOS-ka iyo iPadOS-ka iyo muxuu ahaa macOS-ka. haddaba caqabada waxaan isleeyahay okay fine waa caadi waad ka gudbi kartaa si yaro fudud baad uga gudbi kartaa. problem ku halku ka jiray waxa weeyaan anigu macOS ma isticmaalo computer waxaan isticmaalaa Windows marka
markaasi aan Xcode u isticmaalo waxaan u baahanahay in aan helo computer Mac OS oo Apple iska leedahay way computer baan raadiyay waxaan idhi maadaama ay problem yar oo aan weynayn tahay amaba shaqo yar oo aad u kooban tahay waan soo amaanaysanaya soo ninaan saaxiibnahay baan ka soo yara qaatay dhibaatada ugu dhacday waxa weeyaan computerkiisu version hore oo I think back in 2018 amaba 2018 kii computerada versionadii socday buu ahaa kabacdina waxa dhacday inuu igu iraado computerkan versionkii ugu fiicnaayo ugu dambeeyay ee la yiraahdo Xcode-ka kuma install gareyn kartid sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay in aad computer latest version aad isticmaasho then waxaan yidhi okay computerkii igu dhawaa aan maaragtay aan soo amaanaysan karayay problemkaas iga qabtay talabaad waxaan yidhi okay fine haddana waxaan u baahanahay inaan isku dayo inaan bal xal kale helo maadaama oo technology markaan ku jirno xuluusha amaba maaragtay problemska sida u solve garaynaysa way badan tahay oo options badan bay dadku badankooda haystaan wixii labaadan sameeyay waxay ahayd in aan isku dayay inaan isticmaalo virtual machine okay virtual machine in aan isku dayay oo aan virtual machine cid aan garanayn waxa weeyaan in computerkaaga dhexdiisa aad ku setup garaysan karto ama aad ku install garayn karto operating system nooc walba sida Linux waad ku install garayn kartaa waxaad ku install garaysan kartaa Mac OS waxaad ku install garayn kartaa Windows adigoo isticmaalaya Windows kale ku install garayn kartaa marka virtual machine ayaan isku dayay in aan ku install gareeyo virtual machine Mac OS intaan install gareeyo operating system kii dabadeedna aan ku sii dhex shubo Xcode-kii and again wuu ii shaqeyn waayay in virtual machine-kii isagana sidoo kale aan isticmaalo markii labaad markaa waxaan isku dayay in aan isticmaalo computer Mac OS ah oo aan qof ka soo qaatay si aan maaragtay problem-kan yar u solve gareeyo computerkan soo qaatay ee aan soo amaanaystay wuxuu ahaa computer versionka Mac OS-ka ah ee ku jira uu yahay version hore okay and maraliyaaliya markaan isirey Xcode-kii ku shub Xcode-kii ugu dambeeyay ee ahayd in aan ku isticmaali karayo code-kayga ama project-kayga aan ku dhisi karo wuxuu u baahan yahay ama require garaynayaa inaad haysato latest version of Mac OS ama operating systemka Mac OS-ka versionka ugu dambeeyay si aad ka haysato computerka aad isticmaalaysa waa inuu yahay computerada versionada ugu dambeeyay it's a mess okay ma qof marka aad tahay isticmaali jiray Linux ama Windows operating systems wax aan oo carqaladayn ah oo maaragtay versionskan iyo updateskan iyo waxaan isku wada xidhan kama jiraan muxuu ahaayay operating systemkas kale oo dhibaatadaas oo dhan arkimaysid marka unfortunately maadaama Xcode-ka versionkii ugu dambeeyay application-kayga compatible kala aha ama la shaqeynay aanan ku install gareyn karin computerka waxay noqotay muxuu ahaayay xal kale oo isaguna sidaas iyo kadalik aan shaqeynayn oo iga fail garoobay markii saddexaad waxaan ku qasbanaaday waa muddo week iyo application-ka aan doonayay inaan publish gareeyana si waqti degdeg ah maaragtay loogu baahnaa talaabada dambaysan qaaday waxay ahayd in aan raadiyo computer jaban oo maaragtay lacag badan igaga baxaynin maadaama aynu naqaano Apple productsku inay aad u qaali u yihiin marka la barbar dhigo shirkadaha kale ee la tartamaya productska kale la tartamaya aad bay qaali u yihiin marka waxaan isku dayay computer muxuu ahaayay qiimihiisu macquul yahay oo shaqooyinka publishingka iyo waxyaabaha noocaas aan u isticmaalo in aan raadsado sidaas ayaan ku helay muxuu ahaayay computerkan runta hadii laga hadlana device ahaan marka laga hadlayo computer ahaan marka awoodiisa iyo muxuu ahaayay waxa uu qaban kara iyo isticmaalkiisa laga hadlayo it's very good aad buu wanaagsan yahay limeka wax maaragtay muxuu ahaayay cabasho ah kama qabo waana uu fudud yahay oo meel walba la tagi kartaayo xariga HDMI-ga ama iyo dabka u madgelinaysa meel walba ku isticmaalaysa laakiin politicska ka dambeeya in dadka lagu qasbo in ecosystemka Apple isticmaalaan ayaa waali ah imanka waxyaabahan aadka ula yaabay waxa kamid ah qofku haduu Apple product haysto ama Apple product noocun ah haduu haysto waxa aad ku qasban tahay inaad products kale maaragtay isticmaasho oo the same company leedahay okay so waxa ay kugu qasbayaan imanka hadaad iPhone haysato waxa laga yaabaa in muxuu ahaayay hadad earbuds ama istiraada dhagahan bluetooth-ka ku isticmaal oo noocyo kale shirkado kale aad ka iibsato inay macquul ku noqon weydo oo ama sida loogu talagalay u shaqeyn waayo oo ay kugu qasbaan oo ay dantu kugu qasabto in aad isticmaasho kooda oo aad kooda maaragtay muxuu ahaayay iibsato kusoo dhawaada channelka aad baan idin salaamayaa
waxaan idinkula wadaagi doonaa channelkan waxyaabo useful ah, waxyaabo runtii dadku aad uga faa'iidayaan oo la xiriira technology-ga, business-ka iyo waxyaabaha maaragtay muhiimka ah oo dhan. marka waxaan aad u rajeynayaa inaad subscribe garayso, muxuu ahaayay feedback fiican aad ka bixiso mar walba, wixii fikrada qabtaan ee isleedihiin ha laga hadlo ee aynu ka hadli karno insha Allah aad ii reebtaan. hadduu ilaahay idhaahdo waynu isku dayaynaa inaynu maaragtay ka fargarayno, aynu videos quality leh maaragtay ka samayno. السلام عليكم.